بسم الله الرحمن الرحيم أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد سلام إنما أنا أصحاب السلامي إن ما تحروا إن هالكن إذا كوسو بديو 10 كيني سكالات كود بوك أونلاين سو أنت نقول كلين 10 كيني سكالات يوحنا بهالله وحروا إن ندب أولابتو 10 كيني سديدات سو 10 كيني سديدات وحن كجسوا هذا اللي سيدا أدي وانجنين لهيد على تياتسو يبستي أنا ولي بكسو تصير لوحد midda koowaad wax sidii aad u diiwaan gelin lahayd alaabta aad lacag ahaan ku soo iibsatay sidoo kale waxaan ku tusay sidii aad u diiwaan gelin lahayd alaabta marka aad deyn ku soo iibsato maanta waxaan rabaa inaan ku tuso alaabtii aad deynta ku soo iibsatay deynteeda sidee baad iskaga bixinaysaa okay intaan guda gelin habka la iskaga bixinayo waxaan rabaa horta deynta la igu leeyahay maxay tahay si aan u soo ogaado waxaan imaanayaa halkan reportska reports markaa ku dhufto waxaan tagayaa halkay ku qoran tahay balance sheet halkan markaan imaado balance sheet ka ayaan joogaa waa Mohan Electronics Company waa balance sheet waxaan imaanayaa halka ay ku qoran tahay current liabilities ujeedaan sooma current liabilities waxaan imaanayaa halka ay ku qoran tahay account payable lacagta lagu leeyahay ujeedaan waa $5,000 okay $5,000 faahfaahinteeda haddaan rabo cidda igu leh iyada ayaan ku dhufanayaa okay halkaan imaanaya halkaan waxaa ku qoran Mohan Electronics Company ujeeda transaction report weeyaan halkaan waxaa ku qoran waa date-kii taariikhdii ay deentani la siiyay okay ujeeda transaction type waa bill cidda igu leh waa Horyaal Company waa account payable sidoo kale ujeeda amount-igu waa $5,000 okay total amount-igu waa $5,000 lacag kale oo aan ka qaatay ma jirto markii okay haddii shirkado kale lacag igu lahaayeen halkan ay soo wada galeed iyagoo dhan okay marka waxaan rabaa inaan ku tuso habkii $5,000 iskaga bixin lahaa okay waxaan imaanayaa halkan ay ku qoran tahay new waxaan imaanayaa halkan ay ku qoran tahay suppliers ayaan waxaan ka dooranayaa pay bills oo ah deemahayga iga bixi okay waxaan imaanayaa halkan payment account ayaan waxaan gelinayaa akoonkayga oo ah akoonka lacagta igu jirto oo ah Dahabshiil Bank balance ku jiro waa $6,300 okay halkan payment date weeyaan taariikhda ani lacagtaani bixinayo okay sideeda ku deysan kartaa haddii taariikh kale ay tahay waa dooran kartaa sideeda ayaan ku deysanayaa maanta oo ah 7/17/2020 reference number-kuna sidiis ayaan ku deynayaa okay pay halkan ay ku qoran tahay imaanaysaa oo cidda lacagta la siinaya waa Horyaal Company date halkan waa taariikhda deentani aniga la siiyay okay open balance lacagta hadda igu leeyahay waa $5,000 okay waxaan sameeynaa marka halkan Horyaal ay ku qoran tahay ayaan tigsin karaa haddii lacagta oo dhan aan hal mar badan bixinayo haddii qayb kamid ah aan bixinayo waxaan sameyn karaa inaan halkan ku qoro inaan dhaho waxaan siinayaa $3,000 waxaan siinayaa $2,000 okay marka hore tig aan saaro aragna waxa dhacaya tig aan saarto ma jid it means wuxuu ku leeyahay payment lacagta aad bixinayso waa $5,000 total amount waa $5,000 halkan kor way kugu qorantaa total payment halkan kor xitaa wuu kugu sheegayaa lacagta aad bixinayso waxa ku leeyahay $5,000 okay ani $5,000 ma rabo inaan siiyo halkan godka payment ayaan ku dhufanayaa waan tirtirayaa lacagtani waxaan doonayaa aan leeyahay inaan siiyo $2,000 halkaas geli okay halkan ma firi current account balance akoonkaaga hadda waxaa ku jirto kule $6,300 total payment lacagta aad bixinayso waa $2,000 total account balance akoonkaaga waxaa ku jirayso $4,300 waa fahanteen amalna dan waxaan dhihi doonaa dhowr anil baa inay furan tahay save and send inaan dhaho save garey qofkiina u dir inaan dhaho save and print save garey ina daawac waxaa kaloo dhihi karaa save and close save garey page-kan iga xir sidoo kale waxaan dhihi karaa save save garey sideedana ayay ahaato wax oo dhan waxaasoo dhan ma dhahay marka waxaan dhihi doonaa save and close save garey ina xir okay waxaan imaanayaa halka ay ku qoran tahay reports dan waxaan ka dooranayaa halka ay ku qoran tahay balance sheet si aan u aragno wixii dhacay ujeedaan aan malaynaa balance sheet-ka aan jooga halkani waa Mohan Electronics Company balance sheet ujeedaan akoonkayga Dahabshiil $4,300 ayaa ku soo hartay okay aan imaado marka liabilities-ka aan u arko liabilities-ka ujeeda sama account payable
$3,000 soo $2,000 waa iska bixiyay hadda waxaa liigu leeyahay $3,000 okay $3,000 haddaa rabtid inaad mar kale wax ka bixisid sidoo kale aad samaynaysaa new ayaa leedahay pay bills ayaa leedahay dan mar kale halkii ayaa kusoo laabatay akoonka ayaa halkan ka dooranaysaa soo kale taariikh ayaa halkan gelinaysaa halkan waxaan gelinaysaa reference numberka sidiisa ku daysanaysaa haddaad doonayso inaad lacag kale siisid tik halkaas saar halkan imaa tirtira waxaa dhahdaa waxaan siinayaa 200 okay 200 ayaan siinayaa soo majeedo total payment waa $200 okay halkan imaa current account balance akoonkaaga hadda waxaa ku jirta lule $4,300 total payment lacagta aad rabtid inaad bixisid waa $200 new account balance halkan ay ku qormaysaa waa $4,100 soo akoonkaaga dahabshiil waxaa ku yaraysaa hadda lacagtan $4,100 okay waxaan dhihi doonaa save and close saan usoo aragno wixii dhacay waan soo fiirinaa idan soo waan joogaa soo majeed balance sheetka ayaan jooga kama aan dhex bixin okay soo fiir marka akoonkaaga dahabshiil marka ku jirto $4,100 soo haddii $4,300 $200 ka jarmatay soo kale amount liabilities ka fiiri account payable $2,800 hadday waxayd $3,000 soo marka maanta cashirkay waxaan kaga hadlayay sidee lacagta deynta kugu ah iskaga bixinaysaa soo haddii deyn uu qofku ugu leeyahay aad rabtid inaad siisid QuickBook Online halkaas ayaa laga bixiyaa meelo kale waa ay jiraan laakiin meeshaas ayaa ah meesha inta ugu badan la isticmaalo aad u mahadsantihiin waxaan idin leeyahay ha ilaawin inaad channelkan subscribe saartaan videogan aad gaarsiisaan dadka walaalihiin ay jecel inay bartaan QuickBook Online aad u mahadsantihiin